دوان waxaa jira in aad adigu horseed ka noqotay dadka diidan waxa loo yaqaan 4.5 runtiina dad badan oo Soomaaliyeed baa arinta ku taageeray ama ku garab istaagay sidee la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada kala duwan oo looga bixi karaa jahwareerka si jiidka waa in laga gudbo 4.5 Soomaaliya wax ka fiican bay istaashaa Soomaaliya qabiil ma aha Soomaaliya qaran weeye haddana in la yiraahdo dowladnimada Soomaaliyeed waxa lagu sameeyaa qaab qabiil oo qabiilka laga gudbi karo waxa uu arkaa nacasnimo inay tahay waxaan u arkaa inaysan wax sax ahayn waxaan u arkaa inaysan siyaasad fiican ahayn waxa Puntland gaar ay raadinaysaa ma jirto haddaan ogahay in maslaxad Soomaaliya aysan ku jirin anagu ma aan horseedneen kuma aan doodneen laakiin waxa way 4.5 go'aan horena waa laga gaaray oo jiray oo lagu heshiiyay waa jiray hadda laftigeedan uu anfacaya maaha waxa marna 2016 waxaan u soconaa doorasho kale oo 2020ka 2000 taagnaano iyo 20 sano ka hor meeshii aan taagnayn dilaha dowladnimada lagu hayo waxaan arkaa dadkaas inaysan Puntland gaarsiin meesha rabto Puntland meesha istaasho in la geeyaa positionka iyo maqaamka ay Soomaaliya iyo adduunka iyo Afrika marba ku leedahay waa inay gaartaa waxa loo gaari karaa waxa weeye dowladnimo wanaagsan waxa weeye matalaan shacbi oo dhab ah xildhibaan dad soo doorteen deegaanka yimid dadku ka yimid accountable u ah la xisaabtami karaan waxa qabadkiisa ay qiimeyn karaan sidoo kale dawlad dadka shacabka responsive ah oo u jawaabaysa oo shacbiga rabitaankiisa ku shaqeynaysa way intaan raadinaynaa wax gaar ah maaha wax gaar ah oo dheeraad Puntland ku helaysan ma jire dawladnimo wanaag baan rabnaa waxaan rabnaa good governance adduunka waxa la isku dhaafay waa dawladnimo wanaag wadanka aad joogtaan waxa uu ka shaqeeyaa waa dawladnimo wanaag wax horumarku wuxuu ku gaaray waa dawladnimo wanaag marka waxaan rabnaa anagu institutions hay'ad dawladnimo oo wanaagsan oo Soomaaliyada sida hadda ay tahay ka saari karta marxaladda iyo mushkiladaha naragaadiye 5 sano la soo dhaafayna laga gudbi karo laakiin 4.5 mid maslaxad Soomaaliyeed ay ku jirto maaha xal maaha xalaal maaha horumar lagu gaari karo